Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka. Mowduuciina maanta wuxuu daaran yahay daqiiqadan aan kula hadlayo waxay ku dhegan yihiin gabar Soomaaliyeed oo muuqaalo samayso ciwaankeedana uu yahay geeniyada madow inaad aragteen waa laga yaabaa oo booqatay dal malaayiin qof ay ku nool yihiin qof kastana uu booqanayo saxafiyiin ay booqanayaan youtuberra ay booqanayaan laakiin sababta ay ugu dhegan yihiin gabadhan oo ay ku tilmaamayaan fiiri sida ay soo qortay xitaa geenyada madow in micnaha argagixisada ay taageerayso waa adigoo qof dumar ah yaa geenyada madow ay sideed u booqan kartaa dal aan micnaha caalamka maalin walba ka dhaadhicinayno dumarka wadooyinka in lagu kufsado dumarka wadooyinka in lagu rajmiyo dumarka in micnaha lagu adoonsado sideed adigoo micnaha qof dumar ah hadda waddankaas u tagtaad u dhoolla cadaynaysaa micnaha macquul ma inaad dhoolla cadayso kadibna ay ku tilmaameen micnaha inay argagixisada taageeraysa sida hadda fiiri wargeyskan daily mail wuxuu ku leeyahay siday u booqan kartaa dal dumarka u dilaayo in ay zinaysteen micnaha wargeys ingiriis ayaa qoraya micnaha wargeys ayaa qoraya micnaha dalkan ay booqatay siday u booqanaysaa dal micnaha gabdhaha wadooyinka yani aan dhahno dumarka loo dilaayo inay zinaysteen loo dilaayo micnaha ma qiyaasi kartaa yani hadda ila sawiro qof ayaa wuxuu booqday aan dhahno ingiriiska kadibna wuxuu yidhi webiga times iyo maxay ahayd meesha b b c da ay ku taalla iyo big ben ayaan arkay kadibna muuqaal ayuu ka sameeyey kadibna waxaan nidhi micnaha sideed u buunbuunin kartaa dal qowmuluudka taageerayo sideed u buunbuunin kartaa dal zinada ay caadi ka tahay micnaha mantiqa ayaga ay ku socdaan waa kaasoo kale micnaha gabadhan waxay ku leedahay fiiri waxay leeyihiin siday u booqan kartaa dal micnaha zinada ay xaaraan ka tahay dal zinada ay xaaraan ka tahay micnaha siday u booqan kartaa oo qofkii zinaysta loo rajminayo siday u booqan kartaa siday u booqan kartaa dal caalamka aan ka dhaadhicinay yani hadda warkan markaad akhriso wallahi waxaad isleedahay canug iskool dhexe micnaha dugsi hoose dhigta ayaa qoray waxay ku soo aaday maalin gabar la dilay la rajmiyey waxay micnaha taalibaan ayaa lacag siisay kan micnaha mar kale waxaad qiyaasi kartaa sida ay u sahlan tahay maanta micnaha in qof muslim argagixiso lagu tilmaamo micnaha gabadhan weliba galbeedka ku nool Soomaaliyeed waxay u baahatay kaliya dal inay booqato muuqaal ay kasoo samayso kadibna ay magaalooyin tagto si loogu eedeeyo argagixiso ayaa tahay bal ay ugu eedeeyeen argagixisada ayaad maal gelinaysaa wargeysadan galbeedka waxay ku leeyihiin gabadhan geenyada madow ee Soomaaliyeed ee Afghanistan booqashada u tagtay muuqaalka ka soo samaysay ee ayadoo dhoolla cadaynaysa wadooyinka soo istaagtay argagixisada taageeraysa yani ma ahan xitaa waad la tacaatufaysaa maan argagixisada adigaa maal gelinaya kadibna ilayhin macnaha lacag ayay ku siinayaan si aad u buunbuuniso micnaha ma qiyaasi kartaa xaalkan maanta ku jirno waana arrinka keenay maanta xitaa haddii aad u fiirsato yani caalamka islaamka dadka ayaga yani u arkay inay xulafan yihiin way sahlan tahay maanta micnaha adiga aniga ay qof muslima oo hadlaya micnaha in la argagixiso hata way sahlan tahay micnaha gabadhan inay halkaas booqato keli ayay u baahatay si micnaha argagixiso ugu tilmaamaan si ay u dhahaan micnaha argagixisada taageeraysa ay u dhahaan waxay ugu eedeynayeen inay tiri yani in argagixisada taageeraya micnaha ina maalgelinaya maalmihii hore ayaa lasoo dhaafay gabadhan lagu magacaabay geenyada madow waxay booqatay Afghanistan caadi dal yani qof kasta uu booqanayo magaalooyin badan ayay booqatay nolosha ayay soo aragtay yani xoogaa muuqaaladeeda dabcan accountkeeda waa kana twitterka haddii aad raacayso aan fiirino yani meelo badan ayay booqatay dabcan xuquuqda muuqaalada ayadaa iska leh kusoo dhawow ayay leeyihin micnaha fiiri wargeyska daily mail iyo kullaacadda new york post waxa ka xanaajiya waa sideed adigoo qof dumar u soo muujin karta micnaha inaad niman afghaani ag taagan yani anaga caalamka waxaan u sheegnay qofkii ag istaagaa way cunayeen micnaha waa bahalo geesa leh way ku cunayaan sideed adiga ugu muujin kartaa micnaha qof dumar caadi inay ugu nooshay dalkaas oy sawirro la galay micnaha fiiri dhoolla cadayntan micnaha haddii aad akhriso warkan uu qoray wargeyskan wuxuu ku leeyahay yani dhoolla cadayntaas micnaha siday u dhoolla cadaynaysaa dhoolla cadayntaas micnaha waxay ka dhigan tahay meeshaas inay micnaha dadka caadi inay ugu nool yihiin laakiin anaga caalamka waxaan rabnaa inaan tusno yani hadda qoraalkan uu qoray wuxuu ku leeyahay shareecada islaamka micnaha ayay dabaqayaan dal shareecada islaamka dabaqaya tagaysa dal micnaha siday uga cabsiinayaan hadda matalan ayaga shucuubtooda akhrisanayo kale
inkastoo waxaanad wax masdaaqeed ee lahayn aslan galbeedka naftirkooda xataa aslan ay ka aaminsan yihiin wargeysadan yani wax un bulaacad aad ku tilmaami karto wargeysada micnaha legasiga yani saxaafadaas yani aan ku tilmaami kara micnaha saxaafadda raqiiska ay ku leedahay micnaha ay leedahay sida daily mail oo kale waxay micnaha dal waxay tagtay shareecada islaamka laga dabaqo shareecada islaamka shareeca low ayaa ka jira maxay u tagaysay u buunbuunaysa maxay u dhoola cadaynaysa ayadoo qof dumar ah micnaha wax kastoo adiga kugu saabsan ka muslim ah yani waa qalad ere halkaanay tagtay muuqaalay kasoo samaysay dhulkaas afghanistan sida uu qurxan yahay waxay tagtay meeshaan maxay ahayd qandahaar ay booqatay yani yani siday meeshaan annaga markaan micnaha joognay si amnigan ma ahayn micnaha waa siday ola yaaban yihiin oo kale in anaga markaan joognay 12 sano gumaysanaynay micnaha amni kama jirin dadka wadooyinka lagu cunay sideed ugu soo muujin kartaa dadka aan afghaaniyiinta u sharxaynay micnaha muddada 12 sano ah in haddii xukunka taalibaan uu soo laabto wadooyinka idinku gowrici doonaan waxaas idinku samayn doonaan sideed usoo bandhigi kartaa micnaha meel sidaan oo kale sideed usoo bandhigi kartaa meel sidaan oo kale teeda kale waxyaabaha mataqaana yaab kale oo hadda wargeysadan ay qorayaan waxaan ku tilmaami karaa mataqaanaa logical fallacy micnaha almughaalata almantiqiya mar aan ka hadalnay oo ah samaynta shay aanan jirin kadibna aad ka dhigaysa micnaha qiso dhacday yani hadda waxay ku leeyihiin mathalan gabar booqatay afghanistan ayaa weerar kala kulantay caalamka in ay buunbuuninayso xukunka taalibaan talow caalamka gabadh aan weeraray xaguu jooga micnaha caalamka hadda ka hadlay yiri geeyada madow afghanistan ayaad booqatay waxaad buunbuuninaysaa taalibaan qofka ku yiri waa kee talow micnaha ayaga alifay waxay alifayn qiso gabar soomaali halkaas tagtay ayaa maxay ahayd kala kulantay dadka caalamka maxay ahayd in ay buunbuuninaysa caalamka waa la weeraray yaa weeraray ma naqaan waa sida micnaha aan lahayn oo kale 100 falastiiniin ah la dilay yaa dilay mabni lilmajhuushi oo kale micnaha ma naqaano runtii shayga maanta haddii aad warbaahinta galbeedka u fiirsato waa shay micnaha shay lagu qoslo shay waxaa weeye micnaha aad isleedahay yani xaggee ka imaadeen micnaha warbaahintan caalamka kama tirsana ay gabadhaas tagtay okay yani meeshaan oo kale hadda mathalan waxay booqatay caruur maxay ahayd aywa yani fiiri waxay la kulantay hadda fiiri qoyskan qoys micnaha afghaani ah ka imaaday micnaha sweden ayay ku noolaayeen dumarkooda waa kuwaana laakiin daily mail waxay u muujinaysaa warbaahintaas micnaha waxay rabaan inay caalamka dhahaan inay leeyihiin sideed caalamka ugu muujinaysaa adiga gabadhaani sideed ugu muujinaysaa micnaha carruurtan inay dhoola cadaynayaan sideed ugu muujinaysaa micnaha sweden oo jannada ah in hadda dad kasoo guuraan afghanistan oo micnaha jaxiimadaas holcaysa ay ku laabtaan sideed caalamka ugu muujinaysaa kadibna waa kuwa weeraraya Can you just say hi? Hi. It's good to meet someone that speaks English. So when are you gonna go back to Sweden? No, Are you staying here long? not too long. But Okay. Are you from Bamiyan? No, I'm from Afghanistan. I want to see my family and everybody. Your family is from Bamiyan? No, Where they're you from Afghanistan. They have live I in know, but which city in Afghanistan? Kabul? Charkar. Charkar? Yeah. Okay. Thank you. You made my day. Thank you. dumar dhoola cadaynayo micnaha geeyada madow dhoola cadaynaysa gabadha ayanta dhoola cadayna dumarkaas meesha jooga oo afghanistan ah la arrinkan arrin la aqbali kara ma ahan arrin la aqbali kara maahan waa in aan micnaha qiso buga ka alifnaa in gabadhaas micnaha fiiriya dalxiisayaasha khatarta ah micnaha waa dalxiisa khatar ah kelmadaas xitaa aad bay u adeegsadeen micnaha dalxiisayaal khatar ah in ay tagtay meeshaas micnaha kadibna ay buunbuuninayso yani fiiri sidee u dhoola cadayn karta la dhoola cadayntan waxay ka dhigantay micnaha argixisada inay buunbuuninayso macquul maaha arrin la aqbali kara ma ahan hey geeyada madow arrinkan arrin la yeeli kara ma sideed u dhoola cadayn karta adigoo niman 3 nin oo taalibaani ag taagan لا 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 أرن أقبل كرا ما أهن محي هيدا حتى كوس حفينا ذكر تجي أو معناها ماشي استجي ألف معناها ألف قسوين سماء وحرت السماء يعني خلاص أنا عالم كحاربنا إيش أنكو أركينه عدة أنا كو أركينين وواصاص معناها مقياسي كرتا قصة والبي كسا مين كران عالم كان معناه ومض والبوحي كنت المام كران سيدي معناها هذا الله بوق أو صحافة دان رقيس كأقرتي ومضي لو قد دولي كرا معناه مستقبل كودا iyo mustaqbalka ciyaalkooda loo burburin karaa sidee macnaa ugu dhool cadaynaysaa macnaha waana sida ay rabaan yani hadda adiga fiiri hadda fiiri
معناها galbeedka sida uu jecel yahay dadka anaga naga mid micnaha مثلا siyaasiyiinta oo kale u malaynayaan micnaha ninkaas galbeedka maanta aaminsantahay inuu ku garab taagan yahay aad aaminsantahay in micnaha dowladnimo uu kugu saacidayo